ninkayga aabihiis ima imaa karo hooyadiis ima imaa karto hawshayda waa inaan la gooni noqdaa oo ilmo la soo koriyay oo intaas laga soo maray oo intaas xuquuqa lagu leeyahay gabar doonayso kaligaad inay la gooni noqoto waa caasinimo weeye waa dembi waa diin la'aan waa xishood darro weeye wiilku hadduu asaguna sidaas oo kale uu yiraahdo markaasi aniga iyo gabadha aan qabo waalidkeena waa inuu faraha naga qaado oo aanu maartay anagu waxaana aanu samaysanno oo uusan faragelin waxay noqonaysaa iduna caasi waalidiin ma kala waay waxa weeye caasi waalidiin hada waxa weeye nabiga kaleey salaatu salaam xadiiska hadaynu soo qaadanaynay waa maqlayseen oo ahay nabigu inuu dhahay caasi waalidiinka waxaad u sheegtaa waxa uu doono amal ha sameeyo meesha u damaysan naar weeye bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaa'il mursaliin سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال الله تعالى في كتابه العزيز وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم إلهي يا مهد سبحانه وتعالى وعن ربنا برنامج كان أي نمارة هل كان أي ندونين إنا نكجي ذنو وعكسها بسيها بر الوالدين iyo markaasi waa xuquuqihima waalidka bir loo sameeyo oo loo ihsaan falo iyo waalidka lagu caasiyo waxa ay tahay biriga hadii la sameeyo oo ihsaan loo sameeyo waxa ay tahay iyo hadii waalidka lagu caasiyo waxa maartay aan soo gaarayo bariyaha kan waxyaabo badan oo social media waxaan la leeyahay laga sheegayo oo aad iyo aad maartay nasiib darro ah iyo dadka Soomaaliyeed waxaan lagu aqoonin oo ku soo badanaya gaar ahaan dadka dhalinyarada ah maartay sida ay yihiin iyo xaalada maartay ka soo diriyay caalamka aynu ku noolnahay oo fasahaaday waxyaabaha noocaas waxa weeye dadka islaamka ah waxa uu dhaqan u leeyahay maahan waxa qofka muslimka laga doonayo maahan qofku hadduu caasi oo noqdo ahlu naar waaye رسولنا عليه الصلاة والسلام وحوده يقول لعاق والديه يعمل ما يشاء فإن مصيره إلى النار عاسي والدينك واحد كتير هذا واحد دونتو عمل سمي واحد دونو هالسمايو ماشي قدام ما يسنار ينقنيسه هذا إلهي سبحانه وتعالى إن والدك العاصي إلهي وأنه قدقي مركا إلهي سبحانه وتعالى حقوق دي سمركه وشاقه آيادان هذا كجرت سورة الإسراء إنه سوق عدنيني وحبنا والله يسكفر يا وحنا والله يسقريب يا مركا إلهي سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أيودا إلهي عابدا وعبادة حقك عابدا هذانا الله وحوده إلهي هو شريك يلينو إلهي غير كيس لا عابدنا wuxuu alla ku xijiyay markuu xuquuqdiisa ka waramay wabil waalideen ihsaana waalideenta ihsaan u sameeyo dhahay in birri loo sameeyo ayaa loo baahan yahay marka waalidka sidiisaba waxa weeye waa sabab wujuudki adduunyadan sababta aad ku timiday ayaa waalidku yahay lawla waalidkaas oosan ilaahay oosan abuuri lahayn adigana ilaahay kuma abuuri lahayn شريعته waxay qabtaa waalidka maanta haduu ku dilo qofku qof dilo horta waa loo dilayaa oo quraanka ilaahay ku cadeeyay ahadiista nabi kaleey salaam uu ku cadeeyay in dadka maartay Allah isu qisaasayo laakiin waalidka kuma jiro waalidku haduu waladkiisa oo walaadiisa oo dilo looma qisaasayo limaada laanahu sabab wujuudi way koonkan sababta uu ku yimid ayaa asagu yahay anagoo aan doonayn inaan waxaas dheereeyo oo wacdi dheer iyo arinkadaas aan ka sameeyo aan doonaynin waxa yaabaha soo diriyay oo caasi waalideennimada oo hadda gabadhu ay leedahay aniga maartay ninkayga aabihiis ima imaa karo hooyadiis ima imaa karto hawshayda waa inaan la gooni noqdaa oo ilmo la soo koriyay oo intaas laga soo maray oo intaas xuquuqa lagu leeyahay gabar doonayso kaligaad inay la gooni noqoto waa caasinimo weeye waa dembi waa diin la'aan waa xishood darro weeye
wiilku hadduu asaguna sidaasoo kale uu yidhaahdo markaasi aniga iyo gabadha aan qabo waalidkeenna waa inuu faraha naga qaado oo aannu maaragtay annagu waxeenna aannu samaysanno oo uusanna faragelin waxay noqonaysaa iyaduna caasi waalideennimo kala waaye waxaa weeye caasi waalideenne hadda waxaa weeye nabigu calayhi salaatuwasalaam xadiiska hadda aynu soo qaadanaynay waa maqlayseen oo ahay nabigu inuu dhahay caasi waalideenka waxaad u sheegtaa waxuu doonoo camal ha sameeyo meesha u dambaysa naar weeye waxay ila tahay dadku hadday naarta rumaysan yihiin amay shareecada ay yaqaaniin hadallada noocaasa inaysan dhihi lahayn laakiin hadda ay soo badanayso dadkii inay diintii aqoontii ay ka sii dhimanayso camalfalku uu ka sii dhimanaayo dhallinyaradii maaragtay khaasatan ayadoo hadda dhallinyada keligeed la dhehaynin dhallinyada oo dhan aysan wada ahaynin in waxyaabahan reer galbeedka iyo lagu arkay iyo waxyaabahan macaasidaah oo la fidinaayo soshal mediyaha la dhigaayo oo maanta musiibada koowaadoo maanta caalamka taalla gaar ahaan caalamul islaam mashaakilka haysa oo dhallinyaradoodii haysata uu noqday oo looga faa'iidaysanaayo si xun looga faa'iidaysanaayo in maaragtay waxyaabo badan la marinaayo akhlaaqiyaad aad iyo aad u sayi ahoo u xun in laysu marinaayo in dadkii maaragtay dumarka iyo maaragtay ragguba ay wax badanoo ay abuuraayaan oo dembiilannimo ah ay maaragtay kuwo kale ay tusaayaan arrintaas waa arrin nasiib darro ah waa arrin xaadise ah oo dembi waa jiri jiray laakiin wax la mida aysan jirin waxaan leennahay dadka soomaaliyeedow ilaahay ka cabsada ilaahay aannu ka cabsanno oo maaragtay shareecada aan u laabanno waxyaabaha gefkaa oo diinta loo gefaayo iyo macaasida xaadisada oo la bannaysanaayo oo nin ou maaragtay haweentiisa uu dilaayo naagu ninkeedii ay dilayso ilmihii maaragtay waalidka loo ahay la dilaayo maaragtay ay dhacayso la sheegaayo wax badan la soo bandhigay in maaragtay nin xaaskiisa gabdhihii ay dhalo rabiibooyinkoodii yahay inuu wax ka raadinaayo oo sida xaaska ula dhaqmaayo oo gabadhiisi lamida asagoo gabadhiisi xoogay la mid tahay oo maaragtay saasoo kale weeye waxyaabaha noocaasa dadka waxa ku kalifaana ay u badan tahay waxyaabaha mukhaadaraadkaah ay cunaayaan ayaa keenaaya maxaa yeela wax kastoo muskira khamray noqonayaan marka nabiguna calayhi salaatuwasalaam wuxuu dhahay alkhamru umulkhabaa'is ou dhahay khamradu waxaa weeye dembiyoo dhan ayadaa asal u ah qofku hadduu mukhaadaraad uu qaato wax kastoo dembiya ayuu gelayaa waxaa batay waxyaabaha mukhaadaraadka ah oo ayadana cid xadayhaysa aysan jirin waxaa loo baahan yahay kollay waddankeenna kama baxee in garoommada loo istaago in dekadaha loo istaago in maaragtay xuduudaha loo istaago oo dadku ay mas'uuliyad isa saaraan ayaa loo baahan yahay qofkii mas'uul sheeganaaya oo mas'uuliyadiisa ka soo baxaynin ilaahay qiyaamo u weyddiinayaa waxaa la rabaa waxa noocaasa in loo kaco oo sida inta mujtamaca dhammaantiis inay arrintaas ay u kacaan oo culummadu ay u kacdo oy lisaanka wax ka sheegto oo xukunka jiraahu uu maaragtay wax ka qabto intii awoodla inay qabato munkarka sidiisaba waxaa weeye waa 3 derajo waaye 3 heer waaye rasuulkeenna calayhi salaatuwasalaam xadiis imaam muslim soo saaray oo saxiixa waxau dhahay man ra'aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadih qofka idinka mida oo munkar arka gacanta ha ku beddelo macnaha waxa munkarka lagu samayhaayo ha baabbi'iyo weeye amar weeye markaasi fa in lam yastadic haddousan awoodin fa bilisaani carabka ha ka beddelo oo waxaas waa baadil ha yidhaahdo fa in lam yastadic haddousan awoodin taasne fa biqalbihi qalbiga ha ka beddelo oo qalbiga ha ka kahdo wadaalika adcafu aliimaanu rasuulku iimaanka meesha ugu dambaysa oon iimaan loo naqanayna halkaas weeye haddaad gacanta ka beddeli weyso oo haddaad gacanta ka beddeli weysa adoo ka beddeli kara ood lisaanka ka beddeli weysa adoo ka beddeli kara ood qalbiga ka beddeli weysa adoo ka beddeli kara wax iimaanahoo meeshaas yaal ma jiraan maxaa yeele riwaayad kalaa waxay eeday laysa waraa'a daalika min aliimaani mihqaalu xabbati khardilin waxa weeye iimaan ka dambeeya intaas ma jiro geedka khardalkoo sisinta ka sii yar oo iimaana qofkaasu ma lahu dhah marka hadda waxaad arkaysaa waxaabihii macaasida ahay ooba lagu faraxsan yahay oon dhibaata qofba aysan ka haynin oo iska noqda wax caadiya noqday arrintaasu arrin khatarka soo socota weeye abaaraa ka imaanaya colaad baa ka dhalanaysa dad xumaa ka dhalanaya
xayawaankabaa ay gelaysaa waxay gelaysaa arladay gelaysaa geedahay gelaysaa macaasidaas la samayhayo meel kasta ayay saamaynaysaa dadku waa beddelmaayaan sida hadda la arko dadku waa sii beddelmaayaan war waxaas haddaan laga hor tegin waxaa weeye maaragtay bale caama ayaa imaahaysa sida xadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ahay haddii aad munkarka aragtiin oo aad ka hor tegi weysiin ilaahay waxuu idinku cammimayaa cadaabow dhah summa tadcuunahu markaasaa alla baryaysiin falaa yustajaabu lakum ilaa idin aqbali maayo munkarka haddii waxaa weeye laga hor tegi waayo ee markaasi macaasidaas munkarka wixii ka dhashay oo shu'mi yahay ay yimaadiin oo cadaaba oo cadaabuddunyaa ah waxaa weeye ilaahayow haddii la yidhaahdo cid ku aqbalaysa ma jirto sababtoo waxaa loo baahan yahay wixii adiga lagu saaro inaad ka soo baxdaa loo baahan yahay munkarkaasa laga hor tago waxyaabaha soo dirriyey oo yimidne ha laga hor tago oo xil ha la iska saaro haddii kaleentood waxaa imaanaysa wax nolola oo waddankan laga helaayo ma jirto cid sharaf ku noolaahaysa ma jirto cid waxay rabta gaaraysa ma jirto waxaa weeye munkarkaa laga hor tago khaasatan arrimahan foosha xun oo hadda soo dirriyey oo la arkaayo oo weliba laysu marinaayo hawada iyo waxyaabahan la sahlay oo macaasida fududeeyey ayaga laftirkooda in laga hor tagaa loo baahan yahay marka waxaa weeye intay goorgoor tahay waxyaabahan aannu ka hor tagno ilaahayna aan ka cabsanno waxaana rajayhaynaa inay soomaalidu dhega yeelo doonto wax maqli doonto ilaahay aan u tawba keenno ilaahay aan loo tawba keeno daalimiintana la iska qabto arradan waa fasahaadaysaa ilaahay suuratulbaqara aakhirkeeda alla wuxuu ku dhahay walowlaa dafcullaahi nnaasa bacdahum bibacdin lafasadati alardu waxaa weeye haddii dadka xuxun dad fiican oo ka hor taga la waayo arradu waa fasaadaysaa u dhah hadda marka waxaa weeye dadkaas xuxun waa in loo helaa dadka hor taga waa in dembigooda loo qabtaa waa in lagu jaasiyaa haddii taas la waaye sow maahan arlada ilaahay waxaa fasahaadaysaa dad fiican la arki maayo nolol fiican la arki maayo waxaa weeye maaragtay la arki maayo barwaaqo la arki maayo madar la arki maayo beer wax ka baxaan la arki maayo xoolaa la dhaqda la arki maayo kulli waa laysku baaba'ayaa macaasida shu'migeeda ha laga hor tago si ilaahay subxaanahu wa tacaala rilihiisa aan u helno intaasaana ku soo koobaynaa haadaa billaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu